kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan magacayga waa khaliiji waa casharadeenii ku saabsanaa Dodge for Anfänger jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah waxaa ku guda jirnaa weli heerka koowaad ee luqadda ee A1 daawasho wacan cashirkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay modal verb oo ah modal verbs oo af Soomaali lagu dhaho faldamac modal verb waxa uu qaybsamaan 6 qaybood oo ay kala yihiin können, dürfen, müssen, sollen, wollen iyo mögen. Si aad u isticmaashid qaybtan oo aad sentence-ka u isticmaashid waxa u baahan tahay mar walba in aad ficil soo qaadatid oo verb. Haddii aad rabtid in aad eray ka mid ah erayadan aad ku isticmaashid personal pronoun oo ay kala yihiin ich, du, er, sie, es waxa jirto qaybab kala duwan ee u dhismayaan oo aysan ahayn qaabkaad u dhisan yihiin. Tusaale ahaan waxa meesha had soo qaadanay können oo ah awooda ich kann aniga waa awooda du kannst adiga waa awooda er kann asiga waa awooda sie kann ayada waa awooda es shayga kann waa awooda wir können aniga waa awoodna ihr könnt idinku waa awoodin sie qofka xushmeynaysid ama sie ayaga können way awoodaan si marka si fiican ugu fahanto waxa meeshan kugu sii diyaariyay tusaalooyin tusaale ahaan naagta la Julia kann den Satz nicht verstehen naagta la Julia senteniska ma fahmi karta ayada oo awood uma lahan inay fahanto du kannst den Koffer nicht tragen boorsada yarta ee dharka lagu qaato ma qaadi karta adiga oo awooddaas aad ku qaadi ma lihid wir können sehr schnell laufen aniga waxa awoodnaa inaa si dhaqsi ku cararno ich kann nicht einschlafen aniga ma seexan karo ma awood inaan seexdo ihr könnt uns nicht sehen aniga nama arki kartaan idinka awood uma lihidin ina anagana arkaan oo kun oo hadda u taagan si awood ah oo yani shakhsiyad isticmaalaan marka si aan marka kun oo personal pronoun-kan ugu isticmaashid waxa ku qasban tahay in qaybahan u kala baxaan u kala bedeshid oo aad sida ku xifdisid oo hadda du isticmaalaysid oo aad taqaanid sida ay kans u noqonayso meeshan oo hadda isticmaalaysa kan oo aadan isticmaalin kun iyo waxyaabo kale oo la mid ah oo mid walba midku asiga iska leeyahay ku isticmaashay taa mid la mid ah marka waxa ayadana jirto dürfen oo ayadana ah awood laakiin ka yar duwan kuwa kale tood oo ka yar xushmad badan meeshan dürfen xura adiga u leedahay waxa adiga xur u tahay way hadaa rabto sameey kartaa hadaa rabtan ma sameey karto wax adiga lagu qasbayo oo lagu dhahayo waxaas ilaa sameey ma ahan oo waxa way hadii du darfst das machen lagu dhaho ama sameey kartaa ama iska dhaaf kartaa dooq adiga iska leh marka ayadana markay isbedelisaan isku bedelaysaa ich darf aniga waa sameey karaa du darfst adiga waa sameey kartaa darf adiga waa sameey karaa wir dürfen aniga waa sameey karnaa iyo duft idinku waa sameey kartiin si qofka xushmeynaysa sida ayaga dürfen way sameey karaan si amarka si fiican ugu sii fahanto waxa meeshan ku diyaariyay tusaalooyin tusaale ahaan nik la yiraahdo Robert darf nicht ausgehen banaanka ma aadi kara asiga haday darf dürfen waxaan ku sheegnay in maxaa ku dhaca qofka xurud u yahay wuxuu sameeynaa du darfst das machen adaa dooq iskala daarto sameey kartaa daarto iska dhaaf kartaa laakiin hadda sentence-ku ku duwan yahay waxa soo gashay meeshan diidmo waa cadiya xuriyad kale had ma jirtan Robert darf nicht ausgehen ma bixi kartid banaanka oo diidma meeshan ku jirto iyo dürft nicht mitkommen idinkana ma soo raaci kartaan diidmo kale ku jirto meeshan aydan ich darf nicht mehr rauchen aniga sigaar dam ma cabi karo yani qof caafimaadkiisa la soo hadlay la dhaho sigaar cabtid dhibaato ku imaan doonto oo dhakhtarka ka soo mamnuucay baa wuxuu dhigi kara marka ich darf nicht mehr rauchen aniga sigaar dam ma sii cabi karo Kinder dürfen kein Alkohol trinken carruurta alkoholka ma cabi karaan du darfst kein Zucker essen haddii rabo wuxuu dhigi karaa ich darf Zucker essen laakiin dooq adiga iskala daarb sigaarka sokorta waa cuni kartaa daarta iska dhaaf kartaa marka diidmadana hadirta marka noo diidaysid inaad isticmaal mar walba aa modal verb isticmaalaysid waxa u baahan tahay inaad sentence-ka qayb dambe aad soo gelisid infinitive verb verbka asalkiisa inaad gadaal dambe ku isticmaashid sidoo kale waxaa jirto qayb kale tood oo aydan ah müssen oo qasab ay tahay inaad adiga samaysid müssen waxa waaye 100% waa qasab waxaas waa inaad samaysid aad jirto tusaale ahaan ich muss aniga waa inaad sameeyaa du musst adiga waa inaad sameysaa muss asiga waa inaad sameeyaa wir müssen aniga waa inaad sameeynaa iyo musst idinku waa inaad sameysin si qofka xushmeynaysa ama si ayaga müssen waa inay xushmeeyaan sida marka si fiican ugu sii fahantaa aydan waxaa meeshan ku diyaariyay tusaalooyin tusaale nik la yiraahdo Carlos muss die Wörter lernen nik la yiraahdo Carlos waxa qasab ku ah inuu ereyada barto waxa laga yaabaa in imtixaan gal rabo ama oo wax sameey erey laga rabo waxa qasab ku ah inuu ereyada barto oo muss aso galas meeshan iyo muss noch einkaufen idinka waa ina einkaufen tagtaa waa ina wax soo iibisaan ich muss das Medikament nehmen
daawooyinkan waa inaa qaato waa qasab haddii kale haddaad daawooyinkan qaado waayo waxaa laga yaabaa in ay maxaa ku dhaha dhibaatooyinka laga daaweynaya dib kugu soo laabtaan. Du musst das Fahrrad reparieren. Baaskiilkaas waa inaa dayactirtaa micnaha oo qasab waxay kugu tahay haddaad dayactiri weysidna yacni markuu sii soconayo. Wir mussten lang warten. Aniga waxaa qasab nagu ah inaan sugno. waxaa laga yaabaa inaa hausarzt aad joogtid oo dhakhtarkana la kulanti rabtid waxaa qasab kugu ah inaad sugtid si aad marka dhakhtarka ugula kulantid. waxaa jirto qayb kaleetood ayadana solin ah markii aad solin isticmaalaysid solin ayada mus camal maahan oo 100% inaad samaysmaa laakiin ayadana waa wax lagaa rabo inaad samaysid way ka yara duwan tahay mus laakiin waxaas waa inaad samaysid markii aad personal barnaamij isticmaalaysid waxaa ka mid ah saa u isticmaalaysid ich soll du sollst soll wir sollen ihr sollt sie qofka xushmeynaysa sidii kaleetood solin sidoo kaleetood waxaa tusaalooyin ka diyaariyay ich soll sport machen waa ina sport sameeyo adaa is amris yani macnaa laakiin wax 100% ma ahan soll einkaufen gehen asiga waa inuu einkaufen aadaa muss einkaufen gehen ma laakiin soll einkaufen gehen waa inuu asiga aadaa einkaufen sameeyo wir sollen ehrlich sein aniga waxaa nagala rabaa inaan naqano dad daacad ah. Ihr sollt morgen Überstunden machen idinka oo sheefkood inuu ku dhahayo waxaa ninka nagala rabaa beri inaad samaysiin saacada caadiga shaqeynaysiin saacada ka badan shaqeysiin. Du sollst schlafen gehen waa inaad seexataa. Du musst schlafen gehen iyo du sollst schlafen gehen xoogaa yariis labadaba waa inaad seexataa laakiin mus ka awood badan sol. haddaa qaybta kale usii gudubna ayadana ah wollen oo ah rabitaanka ich will aniga waa rabaa du willst adiga waa rabtaa ACS will waa rabaa wir wollen aniga waa rabnaa ihr wollt idinka waa rabtiin CC wollen qofka xushmeynaysa iyo ayaga waa rabaa sidoo kale tusaalooyin ku diyaarin meeshan wir wollen nicht mitkommen aniga ma rabno inaan idin soo raacno iska cadda ayada rabitaan caadi ah waaye. Ihr wollt nicht früh aufstehen idinka inaad subaxdii soo kacdid ma rabtiin. Du willst nicht mit Ahmed treffen adiga Ahmed inaad la kulantid ma rabtid. Ich will den Kuchen nicht essen aniga cake inaan cuno ma rabo. Aisha will kein Bier trinken naagteeda Aisha ma rabto in ay cabto khamriga so marka ayadu iska caddahay oo waxa waa rabitaankaaga waxa adiga u baahan tahay markaas inaad samaysid waay oo caadi u muujinaysid rabitaanka caadiga. sidoo kale tood marka wollen isticmaalaysid ayadana waxa qasab ku ah inaad soo qaadatid infinitive verbka ficilada asalka inaad soo qaadatid oo u dhow marsi sentence-ka si sentence-kaaga ama jumladaada ay u noqoto jumla dhameystiran oo dhawaq macaan leh. sidoo kale tood waxaa jirta qayb kale tood oo moogin ah oo wollen camal ah laakiin ayada ka xushmad badan tan way ka xushmad badan tahay kaliya inta qofku dhileed ich will das machen waxa ka fiican ich möchte das machen oo markii yani way ka macaan tahay yani laakiin macna ahaan iyo rabitaan labadaba rabitaan isoo kale laakiin marka möchte isticmaalaysid höflicher als marka oo will isticmaalaysid oo way ka yara dhadhan fiican tahay. tusaale ahaan markii ayadana aad personal barnaamijkeeda u kala qaadanaysaan u kala bixaysaa ich möchte aniga waa rabaa du möchtest adiga waa rabtaa möchte asiga waa rabaa wir möchten aniga waa rabnaa ihr möchtet idinka waa rabtiin sie möchten ayaga ama qofka xushmeynaysid way rabaan. sidoo kale waxaa tusaalooyin ka diyaariyay meeshan ich möchte ein Stück Pizza essen aniga waxaa rabaa inaa cuno jab pizza inaa cunaa u baahanahay so marka يعني حوق معهن قسم ما هو يعني أداء سكربت يعني معها لكن حوق أو ربت معهن مجتمع إن sprechen أديك وحرة إنه أديك كل هذا أمر ما يعني معنا وسيرة إسكا هوفلش أو صف أو ترتيب دو مجتس لغة بين أديك وحرة أنا معلن قتيد دو فيلس لغة بين غير إنك حوجا كيرا في عن wir möchten heute spielen أنا وحرنا ما تنا عيارنا بنوني أما باسكتبول ihr möchtet Feierabend machen idinka waxaa rabtiin in aad Feierabend sameysaan inaad shaqada ka tagtaan oo aad xaafadiin iska aadaan. marka meeshan waxaa ku yeesnaa dirtaan qaabka isku bedelaan meeshan personal barnaamijkan ku yaalo kon marka isticmaalaysid saan isku bedelaan marka duufin isticmaalaysan isku bedelaan müssen sollen wollen morgen marka isticmaalaysan isku bedelaan dhamaantood waxaa kula talaa inaad screenshot ka qaadatid oo aad sida hadirtaan ay yihiin aad kula xifdisid gadaal dambe ayaa sida u shaqeynayaan iyo waxyaabo u baahan yihiin dhan gadaal ka fahmi doontaa laakiin qaybta ugu muhiimsan waxay tahay inaad istiqaanid qaabka ay kon iyo duufin isku kala bedelayaan markii aad jumlada ku isticmaalaysid. haddii aad wax qalad ku aragtay ama haddii aad su'aal qabtid labadaba way la soo xiriiri kartaa inta kulankan kulan kale ka xiis badan kulmi doono waa anigoo khaliiji ah fi amaanillah.